السلام عليكم daawadayaal waxaan ku sugannahay halka uu ka dhacayo muntamarka ama gruubka Ansaaru Sunna wuxuu ka dhacayaa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degta Islii waxaana ay tahay maalintii saddexaad ee u dambeysay kulan diimeedkan oo ay ka soo qayb galeen culimo u diin waaweyn oo Soomaali ayaa waxa ay dadka ugu jideeyeen muxaadaro dhan ay walba taabanayso waxaana xusid mudan in ay ku soo islaameen dad cusub oo ay tawxiidku u qabteen gaar ahaan mid ka mid culimo diinka waxaana ka mid ah dadkii soo islaamay ninkan oo tawxiidku u qabtay Sheekh Maxamed Cabdi Umul وأشهد أن محمدا رسول الله sidoo kale gabadh ayaa ka mid ahayd gabdhihii soo islaamay oo ku soo biirtay diinteena suuban waxaana tawxiidku u qabtay Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi لا إله إلا الله guud ahaan ugu dambeyn kulankan ayaa si weyn u soo dhamaaday maanta waxaana halkaas ummad ugu duceysay culimada Soomaaliyeed ميدسان TV عبد الله جبوتي قدم في الدعوة إليك وارزقهم الإخلاص لك يا رب العالمين.